qabsoomida kulan ciyaareedkan afartan naadi ayaa soo bandhigay ciyaar wanaagsan iyo natiijooyin muuqda waxaana naadi kasta u hanweynaa qaadista hanashada koobkan. Afartan naadi oo koobkan dheelayay ayaa finaalkii waxa u soo baxay naadiyaasha kala ah naadiga Beeraha iyo naadiga Kodmo, waxaana guusha rukoorayaal ku raacday naadiga Beeraha oo hal gool ku hantay koobka. Burhaan oo kamid ahaa dhalinyarada soo abaabushay koobkan ayaa codsaday in dhalinyaradan la dhiirigeliyo isla markaana loo qabto koobab kale. waxaan ka codsanayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha shaqadii shaqaalaha ee Puntland in dhalinyarada la dhiirigeliyo loo sameeyo garoomadii ay ku ciyaari lahaayeen sida la socotaan degmada Rako ma laha stadium kubadda cagta ah. waxaan ka codsanayaa wasaaradda wasiirka iyo agaasimaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo shaqaalaha iyo agaasimaha waaxda sportska in ay diiradda saaraan sidii loo sameyn lahaa garoonka kubadda cagta ee degmada Rako raaxo. sidoo kale naadiyaashii ku tartamayay koobkan ayaa isku hambaliyeeyay waxaana wax ka weydiinay daroonkoodii ku aadan kulan ciyaareedka koobka. qabtay bacdi dhalinyarada loo qabanayay degarlawni ka qosliso laba naadi oo seeraadi ka tirsan degmada Rako raaxo ayaa isku dhacay galabtana guusha waxa ku raacday saaxiibaday aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynaa Puntland TV oo loogu qabto koobkan. waxaan leenahay saaxiibayaal koobka nagama qaadin oo qaadeen guul baan leenahay guusha waana la ka qaaday waxa weeye kubad fiican oo soo bandhignayo anaga 9 daqiiqo marisay runtii wax fiican aan garoonka walanin waxaan u mahadcelinayaa Puntland TV oo kulankan gacan ka qaadatay maamusidiisa iyo dubitaankiisa sidoo kale waxaan mahadcelinayaa guddiga koobka hayay iyagana waxa la yidhi waa maasantiin koobkan si fiican ku soo dhamaaday anaguna ku qanacsanahay guushana anagu mar walba inaan qaadno iyo inaan la ka qaado oo meesho salaam runtii waxay ahayd ciyaar galabtii aad u adag koobkiina ay qaadeen naadiga Beeraha ee degmada Rako raaxo waxa leeyahay guul ba soo hoyatay way naadiga dhalinyartii kale soo iyaduna finaalka nala soo istaagtayna waxa u rajaynaynaa inay iyaguna sidoo kale lagama badina waa loo badiyay waxaan rajaynaynaa dhalinyarta iyagana inay guusha nala farxaan farxadda galabtii nala qaybsadaan. Maxamuud Yuusuf Caamir warbaahinta dawladda Puntland degmada Rako.